bismillaahi raxmaani raxiim dhegeystayaal kusoo dhawaada warka subaxnimo ee qaran media qodobada saaka warka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqon doona howlgalo hor leh oo ka bilaaban doono xadka gobolka shabeellaha dhexe iyo galgaduud baarlamaanka koonfur galbeed oo war ka soo saaray shaqaaqadii baydhabo ka dhacday Soomaaliya dalalka jaamacadda Carabta u gudbisay warbixino la xiriira howlgallada ka dhanka ah al-shabaab. Qodobka akhbaraadka dibadda warka subax saakan idinku hayn waxaa ka mid ah Ruushka oo ka dhacay magaalo ka mid ah ama raashin rabshadihii ka dhacay magaalo ka tirsan dalka Paris. radio qaran kala soco warar sugan oo xaqiiqo ah ama booqo qaranmedia.com waa subaxnimo axada taariikhdu ay ku beegan tahay 12-ka bisha 12aad 25teeda 2022 dhageystayaal kusoo dhawaada qodobadii aad maqasheen oo faahfaahsan. howlgalo horleh ayaa la filayaa inay ka bilowdaan xadka u dhaxeeya gobolka shabeellaha dhexe iyo gobolka galgaduud. ciidamada dowladda ay kuwa deegaanka oo iskaashanaya ayaa dhaqdhaqaaq howlgalo horleh ka dhana al-shabaab ka bilaabay deegaanada ku yaala xadka kala qeybiya gobolka shabeellaha dhexe iyo galgaduud. gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe oo safar dhulka ah uga ambaxay degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa socod ku maray deegaanada iyo tuulooyinka alkowsar daarunaciim cadnaan lixey nuur dugle iyo tuulada cali salaad oo dhammaantooda laga saaray al-shabaab. gudoomiyaha ayaa weheliyaan xildhibaano ka tirsan baarlamaanka, taliyaha ciidanka xooga dalka, taliyaha ciidanka lugta iyo wasiiru dowlaha wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya ayaa kulamo dhiirigelina la qaatay ciidamada dib u xoreynta iyo saraakiisha ciidanka xooga dalka Soomaaliya. gudoomiyaha ayaa xusay in al-shabaab laga guuleystay lagana xoreeyay deegaanadii ay ku dhibaateyn jireen shacabka Soomaaliyeed, isagoo xisay in deegaanka laga aas-aasi doono ama laga hirgelin doono deegaanadii al-shabaab ay ka qarxeen adeegyada bulshada. gudoomiyaha ayaa sidoo kale ugu baaqay shacabka dib u xoreynta inay ka harin al-shabaab ilaa iyo ay ka xoreeyaan deegaan walba oo ay ku sugan yihiin al-shabaab. baarlamaanka koonfur galbeed ayaa war ka soo saaray shaqaaqadii ka dhacday magaalada baydhabo, baaqna u diray dadkii halkaasi ku dagaalamay. golaha wakiilada baarlamaanka 10aad dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa soo saaray bayaan ka kooban ilaa 10 qodob oo kusoo caddeeyeen mowqifkooda ku aadan xaaladda koonfur galbeed iyo codsi u jeediyeen dowladda federaalka iyo qodobo kale. qoraalka iyo xildhibaanada koonfur galbeed soo saareen ayaa waxay kaga tacsiyeeyeen dadkii ku dhintay shaqaaqadii maalin ka hor ku dhacay magaalada baydhabo, iyadoona sidoo kale ugu baaqay inay la qabto doorasho xor iyo xalaal ah. qodobada 10ka qodob ay ugu baaqeen dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxaa ugu muhiimsanaa in dowladda federaalka Soomaaliya ku taageerto baarlamaanka ku-meel gaarka ah dhamaystirka badbaadada dowladnimada koonfur galbeed Soomaaliya, sidoo kale dhammaan ciidamada kala duwan ee amniga ugu amar qaadan lahaayeen kusimaha gudoomiyaha iyo xildhibaanada koonfur galbeed. waxay madaxweynaha federaalka ka codsanayaan in dib loo dhigo shirka golaha wadatashiga qaran ee loo balansan yahay inuu dhaco 24 ilaa 26 bisha Diseembar 2022 maadaama ay ku-meel gaar matalayaan sharciyadna ku lahayn. Soomaaliya dalal ay ku jirto ayaa jaamacadda Carabta u gudbiyay warbixino la xiriira dagaalka lagula jiro al-shabaab.
shirka wasiirada warfaafinta ururka jaamacadda carabta oo ka furmay magaalada Tripoli ee dalka Liibiya ayaa shirkaasi uu dowladda Soomaaliya uga qaybgalaya wasiirka warfaafinta dhaqanka dalxiiska Daawud Aweys. wasiir Daawud ayaa shirka ka jeediyay khudbad kaga hadlayay xaaladda dalka si gaar ah guulaha laga gaaray dagaalka dowladda Soomaaliya kula jirto ururka Al-Shabaab kaasi oo inta badan ka dhacay gobolada dalka. wasiir Daawud ayaa shirka ka jeediyay khudbad kaga hadlayay xaaladda dalka si gaar ah guulaha laga gaaray dagaalada Soomaaliya Al-Shabaab iyo deegaanada ay ka dhaceen. dagaalka najax ay guulaha laga gaaray waxay Soomaaliya ku wajahaysaa 3 dhinac oo muhiim ah kuwaasi oo kala ah in militariga xanibaadda dhaqaale la siiyo Al-Shabaab iyo in dhanka doolajooyinka ama fikiradana laga hortago ayuu yiri wasiir Aweys. wasiirka ayaa shirka uga sheegay in warbaahinta Soomaaliya ay kaalin buuxda ka qaadanayso dagaalka ka dhanka ah ay fikirka Al-Shabaab sidii loo joojin lahaa. dhanka kale magaalada Tripoli ee dalka Liibiya shirka martigelinaysa ayaa sanadkan loo aqoonsaday inay tahay caasimadda warbaahinta maadaama ay xubno ururka jaamacadda carabta iyadoo ay wasiirada Daawud Aweys uu la kulmi doono qaar ka mid ah wasiirada ka qaybgalaya shirkaasi. wali waxaad dhageysanaysaan warkii subaxayda kaga imaanaya qaran media. qodobada saaka warka akhbaraadka dibaddan idinku hayno waxaa ka mid ah rabshadihii ka dhacay magaalada Paris oo sii kordhaya. waxaa sii xoogeysanaya rabshadihii ka dhacay magaalada Paris ee dalka Faransiiska kuwaasi oo ka dhashay nin hubeysan oo 3 qof ku dilay xarun dhaqan iyo maqaayad u dhow ay leeyihiin kurdiyiinta baarlamaanka magaalada Paris. madaxweynaha Emmanuel Macron ayaa sheegay in kurdiyiinta ay muddo lahaayeen bartilmaameed weerar waxaana madaxda booliiska ku amray inay la kulmaan. wasiirka arrimaha gudaha ee Faransiiska ayaa sheegay in qofkii lagu tuhunsan yahay weerarka ay caddahay in doonayaan inay beegsadaan ajaanibta kale. toogashada dhowrka ah ayaa maalin dhexdeeda shalay laga maqlay wadada Route Egmont taasi oo argagax ku beertay dukaamadii iyo maqaayadihii ku yaalay wadamada muhiimka ah ee dhexmarta degmada ama magaalada mashquulka badan. dhammaan dadka lagu dilay ayaa ahaa kuwa kurdi ah sida Reuters ay sheegtay. qareen u hadlay xarunta dhaqanka kurdiyiinta 3 qof ee halkaasi lagu dilay ayuu ku sheegay 3 qof ee halkaasi ku dhaawacmayna ay ka mid yihiin ama ay tahay xaaladooda mid aad u halis ah. qodobkaas ayaa guud ahaan ugu dambeeyay warkii subax idinkaga imaanaya qaran media. intaan ku kulmi doonno warkaas xiga waxaan idinkaga tagnaa sidaa nabadgelyo. radio qaran kala soco warar sugan oo xaqiiqo ah ama booqo qaranmedia.com